سلوى صاحبة سم تي تي ومركلة iyo muuqaal cusub muuqaalkana maanta waxaan idin kula wadaagi doonaa sababtii markaas ii suuragelisay inaan jabsado amaba garaaco algoritmka YouTube-ka waan ogahay haatan waxaad isweydiinaysaa waxa algoritmka YouTube-ka aad ka sheekeynayso iyo jabsiga waxyaabahaas insha Allah taala muuqaalkan sii daawo dhameysana adiga fahmi doono waxaan ka hadli doono oo dhan sidoo kale muuqaalkan waa muuqaal aan in badan doonayo inaan idin wadaago balse maanta aan waqti u helay insha Allah taala waxaan rajeynayaa inaad wax badan aad ka faa'iidi doonto isla markaasna uu ku noqon doono tusaale aad maxay ahayd markaas ka shidaal qaado doonto aan si toos u gudgala muuqaalka inteena badan ee markaas janaalada leh waxay aad u jecel yihiin markaas in muuqaaladooda mid kamid ah ama muuqaaladooda oo dhan ee markaas helaan views ku filan si maxay ahayd markaas janaalkooda uu si dhaqsi ah horumar u sameeyo waa sax tasbee mahan waxaan kula wadaagayaa marka sababtii ii suuragelisay in janaalkan muuqaalada aan soo dhigo waliba intooda badan markii qayb searching-ka YouTube-ka lagu qoro ku soo horbaxaan tusaale cad aad ku fahmaysaba aan ku soo qaato haddaan haatan qaybta searching-ka ay YouTube-ka ku qoro tusaale ahaan sida loo sameeyo YouTube channel isla markiiba waxaad arkaysaa muuqaalka ugu horeeya iyo weliba kan saddexaad inaan soo dhigay channelkan sila midan haddii aan qaybta searching-ka ku qoro sida loo sameeyo Google AdSense isla markiiba waxaad arkaysaa muuqaalada ugu horeeya oo dhan waxaa iska leh channelkan Sum TT qaarkiin haatan waxaad i weydiinaysaa marka war Usmaano maxaad isticmaashay miyaad jabsatay YouTube-ka maxaad samaysay waxaabiyaan sameeyay oo dhan insha Allah muuqaalkan ayaan kugu faahfaahin doonaa ugu horreyn aan wax yar ka taataabto algoritmka YouTube-ka sida uu shaqeeyo waan ogaa algoritmka YouTube-ka weli kama aan hadlin insha Allah waxaan rajeynayaa ama qorsheynayaa inaan muuqaal faahfaahsan aan kasoo diyaariyo haddii ii suur gasho waqti u helo balse aan wax yar dul maro algoritmka YouTube-ka ugu horreyn waxaan nafsadeyda weydiinayaa anigoo adiga ku hadlaya war waa maxay algoritmka YouTube-ka sidee buu u shaqeeyaa tan koowaad oo noqonaysa waa maxay algoritmka YouTube-ka simply aniga oo balbalaarin waxaan leenahay waa sida ay markaas YouTube-ka u shaqeyso okay waxaad kaloo isweydiinaysaa marka sidee uu u shaqeeyaa algoritmka YouTube-ka sida uu shaqeeyo runtii waxaan dhihi karnaa waa sidii maskaxdii bini'aadamka oo kale maadaama qolada YouTube-ka ay ku shaqeeyaan qalabka loo yaqaano artificial intelligence kaasoo aan ku tilmaami karno inuu yahay wax maskaxda bini'aadamka akhrinayo tusaale YouTube-ka aad muuqaal ka daawataa muuqaaladaas aad maalin walba daawato waxaad arkaysaa markaas waxaaba ku saabsiisan muuqaaladii aad daawatay kaliya ayaa maalin walba markaad soo gasho YouTube-kaada ku arkaysaa marka taasi waxay ka mid tahay markaas sida uu shaqeeyo algoritmka YouTube-ka aad bay runtii u farabad yihiin qaar waxaa jiro aan ognahay qaar aanan ogeynin balse waxaan filayaa inaad waxyaabo yar oo kooban oo ku saabsan algoritmka aad soo yara ogaatay insha Allah waxaan rajeynayaa muuqaal faahfaahsan inaan ka soo diyaariyo xaggaas iyo algoritmka YouTube-ka aan u soo noqona marka tan ah sidee bay ugu suura gashay in YouTube search engine-ka amaba loo yaqaano YouTube CEO aan ugu noqday qofka ugu horeeya taas waa tan aad haatan isweydiinayso runtiina dadka inta badan daawado janaalkan muuqaaladiisa waxay naga soo galaan dhankaas iyo YouTube searching-ka haatan saashada hortaada ka muuqda haddii aad eegto waxaad arkaysaa number 1 inuu noqonayo marka dhankaas iyo searching-ka dadka inta badan daawada marka waxay naga soo galaan dhankaas iyo YouTube search terms-ka ama markaas waxyaabaha laga raadiyo YouTube-ka saan wada ognahayna YouTube-ka qofka markaas daawanaya muuqaaladaada meeshii uu ka soo galay way kaydinaysaa taasoo marka YouTube-ka ay ugu magac dareen traffic source tusaalahan haddii maanta qof muuqaaladaada uu ka raadiyo barta YouTube-ka isla markiina uu soo baxo daawadana qofkaas waxay ku xisaabinayaan marka inuu ka soo galay dhankaas iyo searching-ka sidoo kale qof haddii muuqaaladaadii ka soo daawaday qaab recommendation ahaana iyadana sidoo kale waxay ku xisaabinayaan marka qaab recommendation ahaana warkaas iyo faahfaahintaas dheer baan ka soo laabana marka sidee ugu suura gashay inaan number 1 ka noqdo qaybta search engine-ka ee YouTube-ka waxaan dhihi karaa waxyaabo badanba way ii suurageliyeen qaar aan anigu gacanteyda ku sameeyay iyo qaar markaas YouTube-ka ii sameysay kaasoo loo yaqaano recommendation tan aan anigu gacanteyda ku sameeyay haddii aan kuu sheego waxay tahay haddii aan ka soo tagno markaas muuqaaladaas aan sameeyay inay noqdeen kuwa la xiiseenayo waxay tahay waxaan isticmaalay wax loo yaqaano keywords amaba sidoo kale aan u naqaano tags runtiina Soomaalida ama ka soo qaadnay intooda badan tagska amaba keywordska way iska indhatiraan tusaale qofkii muuqaal buu soo sameynayaa janaalkiisu uu cusub yahay ma isticmaalaya markaas wax tags ama keywords waxaan runtii ku xaqiijinayaa sababihii janaalkan uu hormaray inay ka mid tahay tags muuqaalkaagiina haddii aadan keywords ku dirin waxaan dhihi karaa waa muuqaal cusba la'aana marka waa muhiim inaad isticmaasho keywords ama waxaan loo yaqaano tags taasoo runtii wax badan kaa caawinaysa anigaan aan kula hadlaan iga caawisay kuma dhahay maanta sidaas iyo sidaas sameey insha Allah waad helaysaa balse tan aniga ayaa tijaabiyey xaqiijiyey hubiyey inay tahay mid shaqeynayso tan kale aan kugu sii daraa waxay tahay tags noocee ah baad isticmaalaysaa tusaale waxaa jiro keywords ama tags search engine-ka YouTube-ka uu aqoonsaday isla markaasna la diiwaan geliyay waad ogtiin YouTube-ka wax walba markaas laga raadiyo way diiwaan gelisaa tusaale haddii maanta kaliya ay kumanaan qof raadiyaan sida loo sameeyo YouTube channel isla markiiba algoritmka YouTube wuxuu sameeyaa marka
in dadkaas waxyaabihii ay raadiyeen uu save gareeyo isagoo markaas kaydinaya halka qaar uu jiro tags ama keywords uu systemka YouTube-ka uusan aqoon marka marnaha sameeynin tags aysan systemka YouTube-ka aqoonin inaad muuqaalkaaga ku darto waxa aad u muhiim ah inaad isticmaasho tags markaas algoritmka YouTube-ka hor u aqoonsaday la diiwaan geliyay waxaan kaloo si sir ahaan kugu sii daraya haddii aad doonayso inuu muuqaalkaaga uu noqdo number 1 ama qaybta searchingka YouTube-ka markii lagu qoro oo si automatic u soo baxo waxaad samaysaa maantadan qaybta searchingka YouTube-ka tag tagska aad doonayso inaad isticmaasho ku qor qaybta searchingka YouTube-ka muuqaalka ugu horeeya markaas kugu soo horbixi doona ayaa waxaa sameynaysaa inaad tagskii qofkaas isticmaalay ayaad adigana isticmaalaysaa waxaad sameynaysaa marka tagskaas copy garayso sidoo kalena waa muhiim inaad isticmaasho title-kii ama ciwaankii qofkaas isticmaalay tusaale ahaan sida loo sameeyo YouTube channel haddii aad ku qorto maanta YouTube-ka waxaad helaysaa muuqaalo tiro badan muuqaaladaas ugu horeeya title-kaas ay ku magacaaban yihiin ayaad isagana copy garaysanaysaa waxaad paste ku leedahay marka qaybta tagska ee muuqaalkaaga marka aad bay muhiim u tahay inaad isticmaasho tags ama keywords in badan waan ka hadlay tags iyo keywords السلام عليكم ورحمة الله كسر مرة جنرال سمتي وأنا وأصحاب كين عثمان ما أنت مقال كان وحنين كل وذايق دونا وبشد أن مدة دير دونا إن المقال إنك أصو دياري وبلسان ما أنت جانس وهلي حتى بس وش وعتاي ويب سايت كان يو أنفعيا كنت ويب سايت كان هو أنفعيا قف والبا ويوتيوب جنرال كله سنة ودوغناي waxyaabaha ka caawiya channelkaaga inuu horumar sameeyo waxa kamid ah tags website-kan aan maanta la wadaagi doono wuxuu ku saabsiisan yahay tags waxa xaqiiqa mar qaar inaad mashquul tahay ama baadan gacantaada ku qori karin tags fiidiyowan haddii aad dhammaysato waan hubaa inaadan haatan kadib ku wareeri doonin tags sida loo qoro ku soo dhawaada fiidiyowga السلام عليكم صاحبي السود هذا ومركل امتحانهني يوتيوب 2020 maanta muuqaalkeena waxaan ku arki doonaa ama baan idinku tusi doonaa qaabkaad muuqaaladaada ugu dari karto tags runtii waa muhiim inaad mar walba isticmaasho ama muuqaaladaada aad ku darto tags sababtu waxay tahay haddii aad doonayso inuu channelkaaga hormaro horumarkaaga wuxuu kaaga xiran yahay inaad isticmaasho tags ugu horreyn waxaan wada arki doonaa faa'iido uu leeyahay tags tusaale ahaan waxaan u baahanahay inaan soo furto YouTube marka YouTube sidan ku soo furmo waxaan wada arki doonaa marka aniga aan haatan idin hadlaayo tagska sida uu yaabiyay halka searching ayaa tagaya kadib halkan ayaan waxaan qori doonaa tusaale ahaan sida loo sameeyo ayaan qorayaa sida loo sameeyo YouTube channel si automatic ay ku soo bixi doonaa tusaale sida loo sameeyo YouTube channel ayaan doortay soo halkaas ugu jeedo muuqaalka ugu horeeya waa muuqaal aan soo dhigay channelka SMTT sababtoo muuqaalkan ugu sara marana muuqaaladan kale waxay tahay waxaan isticmaalay tags muuqaaladii tirada badan ayaan ka soo diyaariyay keywords ama tags qaybaha sare ayaan ka soo muujin doonaa marka halkaas ayaad markaas haddii aad doonto ka daawan kartaa waxaana jeclahay inaan halkaas ku soo gabagabeeyo muuqaalka waan filaa rajeynaa inaad wax bartood ka fahamtay ama ka faa'iiday aad baan kaa mahadcelinayaa daawashadaada quruxda badan ee aad ku soo gaartay ilaa dhamaadka waa aniga Cusmaan oo idin la sidaas nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh